tani wixii ka dambeeyay markii didibada loo aasay safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika waxa soo baxay Soomaali fara badan oo ka cabanaya lacagaha diiwaangelinta iyo lacagaha ku korodhay diyaaradaha dib ugu celiya Soomaaliya dadka 2500 oo lacagta wadankana una dhiganta $260 Mareykanka ayay safaaradda Soomaalida diiwaangelin ahaan uga qaadaa shakhsiga doonaya inuu dib ugu laabto dalka Soomaaliya dhanka kale diyaaradaha baadi baska ay ku goynayaan qofka Soomaaliya dib ugu laabanaya ayaa waxa ay gaarayaan lacag gaaraysa 7500 oo marba marka ka dambaysa lacag ay ku sii kordhayso dad fara badan ayaa banaanbax ka sameeyay xafiisyada diyaaradaha ee magaalada Johannesburg oo ka kala yimid wadanka intiisa kale TV-ga caalamiga ee Somalisad oo halka ku booqday ayaa waxa ay ka cabanayaan dadkani safaaradda Soomaalida iyo diyaaradaha oo lacagtoodu aad u qaaliyooday waxaana hadaladoodii kamid ahaa aniga magacay waxa la yiraahdaa Xasan Cabdi Maxamuud Xasan Kaafi la yiraahdaa waxaan ka camanayaa waxaan joogaa Johannesburg 25 maalmood oo aan ku xayiranahay oo aan rabay inaan aado magaalada Muqdisho safaaradda marka u tago waxay qaadatay lacag 2500 waxay yiraahdeen waxaan ku sameeynaa booqo ilaa hadda tan waxay iga soo baxna malaha qarashka magaalada ku joogno waa ku xumaystay magaalada Muqdisho aadana waa lii diiday qofka faariska wuxuu ka qabanaya mala safaaradda ay ka farsan waa la haysta hoteelada ayaa joogaa magacaygu waa Miisha Xasan waxaan ka cabanayo waxyaabo oo safaaradda Soomaalida meeshaan inay u gargaarto rabto ummadda muslimiinta ay ku soo rogtay safaaradina lacag lagu qaadanayo ninka lacag ka qaadanayo ujeedin oo lacag gacan hoos uga soo taaganayo si kastaba ha ahaatee safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika oo madaxda ka yahay Sayid Shariif Cabdullaahi ayaa wax jawaab ka soo bixin ilaa iyo haatan Abdixakiin Ibrahim Cawaale Somalisad TV Johannesburg Koonfur Afrika